soo dhawaada asxaabey waa soo koobidan iyo falaqaynta filim khiyaali saynis ah wuxuuna filimkeenani ku bilaabmaya dhagax naysaka oo ku soo dhacaya dhulka dhagaxaas waxa uu lahaa DNA kaas oo aanay saynisyahanadu hore u arag waxaanay saynisyahanadu ku tijaabinayeen DNA-gii qunaajooyinka waxaanay tijaabooyinka ku samayn jireen shaybaadh ay militarigu leeyihiin hase ahaatee maalin ayaa uu faraha ka baxay tijaabooyinku dhammaan shaqaalaha waxa laynaysa qunaajo weyn si taa la mida shaybaadhkana waxa ka buuxsamaya qunaajooyin waaweyn waana looga guuraya waxaana soo muuqanaya laba nin oo doonaya inay ka xadaan agagaarka shaybaadhka biraha yaal nasiib darrase waxaa dilaysa qunaajo weyn waxaynu arkaynaa wiilkan oo lagu magacaabo Brian waa mid ka hela filimaanta khiyaaliga jecelna inuu maruu noqdo nin geesiya waxayna degan yihiin magaalada sidaasi uga sii fogeyn godka shaybaadhka malin ayaa uu saaxiibkii Lucas guriga ugu imaanaya isagoo uu sheegaya in uu ku guuleystay tartan oo uu ka helay lacag fiican sidaas daraaddeedna uu dalxiis u tagi doonaa New Mexico hase ahaatee kamay fikirin dadka faraha badan ee la waayay kuwaasi oo sawirkooda ku dhajisan yahay meel kasta si taa la mida waxa safarka ku welinaysa in lagu magacaabo Liza marka ay gudagaleen safarkoodii waxa soo maray laba qof oo mootooyin wata iyagoo dhaafay hase ahaatee Lucas ayaa ka daba kaxaystay mootadiisii gaadhiga saarneed waxay tartamaanba waxay soo gaadheen meel ay xafladi ka dhacayso wuxuu Lucas u sheegayaa Brian inuu xafladan ugu dhex sheegto jacaylkiisa Liza marka uu dhankeeda u soo kacay waxa uu arkayaa iyadoo qof kale la hadlaysa xafladana waa uu iskaga soo tegaya waxa arkaya Lucas isagoo ka daba imaanaya isagoo isku dayay inuu ilowsiiyo wixii ku dhacay laakiin waxay buurta ka soo tuurayaan sharaab ay cabayeen waxaana ku agdhacaya god Lucas iyo Brian waxay go'aansanayaan inay ogaadaan waxa godkan ku jira waxayna ogaanaynaa inuu yahay godkii shaybaadhkii ciidanka ee laga guuray Lucas fudulnimadiisa waxa uu go'aansanayaa inuu ka gudbo shabaga oo uu godka gudaha u galo Brianna kama uusan hadhin laakiin waxa uu isku dayay inuu ku qanciyo inay iskaga soo baxaan meeshan hase yeeshee muu ahayn mid maqlaaya dhanka kale waxay Liza ahay mid diidaysa Lucas iyo Brian waxaynu ku soo noqonaynaa dhankaas iyo Lucas isagoo galay shaybaadhka albaabaya uu sii dhiibay Brianna waxa uu mid isku dayay inuu ku qanciyo inay xafladda ku noqdaan laakiin waxay arkayaan xuub caaro oo weyn iyo reer dhulka ku daatay markay eegaanna waxa uu yeeshay sifad aad u qarmuun waxay arkayaan kamarad ku dhajisan qolka waxaanay dareemayaan sanqadh xooggan waxay u soo kacayaan dhankaas iyo sanqadhii waxaanay soo galayaan qol kale iyagoo ku arkaya qunaajo weyn wayna ka naxayaan iyagoo soo cararaya dhankaas iyo jikada hase yeeshee waxa soo garaacaysa Liza iyagoo u sheegaya waxay arkeen kana dalbanaya inay u soo gurmadaan laakiin iyagoon location saxan u sheegin ayaa uu mobilkii bilaadab ka noqonaya waxaana Lucas iyo Brian go'aansanayaan inay la dagaalamaan qunaajada iyagoo isku dayay inay ka soo baxsadaan shaybaadhka hase ahaatee waxay samaynayaan sanqadh taas oo ku soo jeedinaysa qunaajada laakiinse waa ay ka gabanayaan qunaajadiina marka ay weydo way iskaga soo noqonaysaa hase ahaatee Lucas ayaa jeebkiisa kala soo baxaya sharaab waana uu furaya laakiinse waxa maankiisa ka baxday inay qunaajadu wax walba urinayso oo waxay arkeenba iyada oo dul taagan laakiin waa ay ka yaacayaan iyana waa yiriinaysaa waxay qaban gaadhaysaa Lucas waxaana ka soo jeediyay Brian waxayna isku dayayaan inay albaabka ku xidhaan laakiin waxay qabanaysaa Brian Lucasna waxa uu isku dayayaa inuu ka furfuro aafadan qabsatay saaxiibkii hase yeeshee waxba waa uu qaban kari waayay iyagoo isla kadeedin ayaa waxa soo gaadhaysa Liza iyadoo quraanjada madaxa kala dhacaysa faash ilaa inta ay ka dhimanayso waxaynu ogaanaynaa in dareerihii ay markii hore arkayeen
uu yahay dhiigga quraanjadan, laakiin waxa imaanaya quraanjooyin kale iyagoo iskaga soo cararaya kinjiga imaanayana qol kale. waana qolkii lagu ururin jiray xogta tijaabooyinka. waxay helayaan fiidiyow digtoor lagu magacaabo Renard. waxa uu digtoorku yidhi waxay u baahan tahay quraanjadani si ay u taranto una weynaato inay cabto xaddi fara badan oo ah khamriga maadada ku jirta, waana ta wax sakhraamisee. Lucas waxa uu odhanayaa waa inaynu ka gaadhnaa dadkii xafladda inta aanay gaadhin quraanjadu. waxaynu dib ugu soo noqonaynaa dhankaas iyo xafladda. dhalintii sideedii ayaa ay iskugu jibaysan tihiin. hase ahaatee mid dhalinyartii ka mida ayaa arkaya bir culus oo uu sharaab ku jira oo keligeed dhaqdhaqaaqaysa. marka uu ka soo daba baxay waxa uu arkayaa quraanjo weyn oo cabbaysa sharaabkii ku jira birta. hase ahaatee markii uu anfariiriya ama kaag qaaday ee uu isku dayay inuu meesha iskaga cararo ayaa quraanjadii birtii madaxa ka siinaysa, waxaana uu dhimanaya. waxaanu ogaanaynaa inaanay quraanjadani ahayn keligeed ee sida quraanjooyinka kale lagu yaqaano ay la socdeen saaxiibadeed. waxaana iskugu soo baxayaan xafladdii iyagoo farxaddii u beddelayay murug iyo baqdin. goor dambe ayaa ay soo gaadhayaan saddexdii saaxiib meesha iyada oo aanu qofna joogin, meeshuna kharaab iyo dhiig miidhan ay tahay. waxay iskaga soo noqonayaan gaadhigoodii waxaanay doonayaan inay ku noqdaan magaaladoodii si ay dadka uga sheekeeyaan waxay la kulmeen. laakiin waxa soo weeraraysa quraanjadii iyagoo iskaga soo yaacaya gaadhiga. waxay kaxaysanayaan mootooyin, meeshana waa ay iskaga imaanayaan. marka ay muddo socdaan ayaa uu Brian isku dayayaa inuu mootada ka boosiyo jar u dhexeeya laba buurood, laakiin Lisa oo mootada la saarnayd ayaa joojinaysa iyadoo u sheegaysa jacaylka ay u qabto. se quraanjadii ayaa la cararaysa Lisa isagoo Brianna ka warhelaya qayladeeda. Lucasna waxa uu ahaa mid meel fog ka eegaya waxa ka socda meesha. hase ahaatee waxa uu yimi Brian iyagoo wada raacaya mootadii kana daba tegaya quraanjadii. hadda waxay yimaadeen halkii quraanjadu ku nooleed iyagoo arkay inay quraanjadu dadka ku duubayso xuub. waxay arkeen Lisa waxa ku adkaatay inay ka furaan xuubka, waxaana dareemaysa quraanjadii intaanay soo weerarin waxa rasaasiinaya qof kale oo godka soo galay, waxaana uu noqonayaa Dr. Renard isagoo u sheegay in xuubkan uu leeyahay qalab kale oo lagaga furo dadka. hase ahaatee qalabku waxa uu yaalaa qolka shaybaarka iyagoo u soo kacay dhankaas iyo qolka shaybaarka isagoo digtoorku siiyay khariirad ay ku taalo meelaha uu hubku yaallo se inta aanu u sharixin waxa caloosha gees ka taagtay mid ka mid ah quraanjooyinkii. Lucas iyo Brianna way iskaga soo yaacayaan meesha, laakiin marka ay xoogaa soo yaacaan waxay go'aansanayaan inay dib u noqdaan oo ay la dagaalamaan quraanjooyinka. waxay raacayaan khariiradda uu siiyay digtoorku iyagoo imaanaya meesha uu hubku yaallo si waxay ogaanayaan inuu ku yaallo qori rabood ah oo tooganaya wixii dhaqdhaqaaqaba. se marka uu qorigu dhinaca kale u jeesto ayay si bilaadhib ah u soo galayaan dhismaha. markay soo galaan dhismaha waxay helayaan hub horumarsan iyo weliba qalabkii xuubka lagaga jarayay dadka. waxay soo qaadanayaan hubkii casriga ahaa iyagoo markay dibadda u soo baxaan arkaya mootooyin iyaguna casri ah iyagoo ku imaanaya godkii ay quraanjadu joogtay. waxaanay soo badbaadinayaan saaxiibadood. laakiin marka uu isiri Brian aad meesha iskaga tagtaan, Lucasna waxa uu go'aansaday inuu dadka kale ee meesha ku xidhan isagana badbaadiyo. waxaanu Brian bilaabayaa inuu ka mashquuliyo quraanjadan isagoo soo jeedinaya kana kaxaystay mootadiisii. quraanjaduna gabi ahaan waxay ahayd mid daba gashay, laakiin qorigii raboodka ahaa ayaa dareemaya dhaqdhaqaaqa quraanjada isagoo rasaasaynaya laynayana. laakiin Brian iyo Lisa waxay u haysteen inay dhameeyeen dhammaan quraanjadii. waxaa la arkayaa quraanjo weyn oo dul taagan, taas oo ah mid xajmi ahaan ka weyn quraanjooyinkii kale, waana ay ka yaacayaan. Lisa waxay Brian ku dhiirigelinaysaa inay ka boodaan labada buurood ee ay markii hore ka diiday. wayna ka boodayaan iyagoo dacalka kala tegaya.
waxay markiiba helayaan gaadhi meel u dhow yaallay. marka ay koraan ay isku dayaan inay ka haystaan waxay boqoradii quraanjadu gaadhi ku qabsanaysaa xuub. Liisa ayaa qori ula baxaysa waana ay rasaasaynaysaa ilaa inta ay ka dhimanayso. waxayna ka soo dhacaysaa buurta iyadoo xuubkiina ku soo jiidanaysa gaadhiga. gaadhigina waa uu ka soo daba dhacayaa waana uu ku qarxayaa. halkaas ayaa ay ku dhimanaysaa boqoradii quraanjadu. waxaynu arkaynaa Lucas oo dadkii dhammaantood ka furfuray wixii ku xidhnaa. sidoo kale waxa uu gubay godkii si aanay u dilaacin beedka quraanjadu. waxaana uu filimku ku soo gabagaboomayaa iyaga oo dib u kulmay sidoo kalena dib ugu soo noqday meeshii ay xafladda ku dhiganayeen. like saar haddii ay tahay markii kuugu horreysay nagu soo biir.